shacabka Soomaaliyeed waxa wax aad iyo aad looga yaqsoodo ah gaal kristan oo aan islaam ahayn ayaa wuxuu ku soo dhiibay oo kugu aaminay shilimaad caruur gaajaysan la siinayo yuu kugu aaminay adigoo muslina oo leh ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أنت مقعي موقعي وتقانب الشعب الصومالي مالك السجوتان ولكن عبد الحكيم عثمان والشيخ صومالي اي كي حتى الشيخ أو كله المنيابوليس من الصادع لما وحنا نقول السلام يا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت تجعلي انت نعود انت تايرسلي انت قصور جدا لما انت وحنا اذن لا يا الله هيدن حفظه برنامج كنا ما انت محكو ساسيه هاي امه الصوماليات waxaan rabaa inaan halka ugu cadeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa oo ilaahay ka baryayaa hadii aan idin hor keeno wax beena oo aan qof jaan saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa inay ugu dhacdo ayaa ilaahay ka baryayaa erey kasta oo idin sheego waxaan kulli ibn al-aadan al-khada qofka khalad waa ka dhici kara laakiin waxaan iska ilaalinaya iska hubinaya inaan wax beena aan idin la soo fariiso bulshada Soomaaliyeed warka aan idin kaanana waxa weeyaan war cad oo aan meel ka soo laabanay muddo laga joogo bishaan aan ku jirnay February bisheedii ayay ahayd marka dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota jooga aan arkay sidii wax u walaaqayeen oo uga digay markii aan ka hadlay ummada warda say soo wacday George Abdulhakiim Ams wada gariinay maxaa dhacay muxuu yahay program kale maxaa lagu sameeyay waxa wax aad iyo aad looga yaqsoodo shacabka Soomaaliyeed waxa wax aad iyo aad looga yaqsoodo ah gaal kristan oo aan islaam ahayn ayaa wuxuu ku soo dhiibay oo kugu aaminay shilimaad caruur gaajaysan la siinayo yuu kugu aaminay adigoo muslina oo leh ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah life baan ku jira please adigoo leh ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah ayaa gaalkaas kristanka wuxuu kugu aaminay lacag adoo muslina oo ku yiri dadkaas gaajaysan caruurta isla dad waaweyn COG lacagtii lagu dhiibay magaceedu muxuu ahaa non profit yani waxa weeyaan waxba kama faa'iidi kartid qofkaan maxaa ka qaldan walaalo gacaliya dayga dhaaf life baan ku jira waa ku soo wacaya yaawa okay non profit waxa weeyaan macnaheedu waxba kama faa'iidi kartid يعني الشقة النم برفض معناه يقول وين وحبك كما فايدة كده جوجل قرايه قف كستو حتى تاك وين كما قاعدين كده سيدي ايات قارب بقول يكون تكون الدولار سيدي ايات ذهب 19 iyo 100,000 دولار aad uga qaadanaysa war dadkan aan jaahilnimada ah in wujirta maxay tahay diinteeni islaamka ee macaanay sidee maanta dareemaysaa idinka oo muslina marka gaal ay idin soo dhibay caruur muslim idinku soo dhibay iyo caruur gaalaba aad idinka muslina xalaalaysateen oo aad dhacdeen see dareemaysaa maanta see dareemaysaa ii sheeg miyaanay dhaawac iyo damage ku ahayn diinteeni macaanay miyaanay ku ahayn dhaawac Soomaaliya ilaahay baa idinku dhaafshay maxaad ku oranaysaa ninka gaalka markaad leedahay diintayadu waa macaan tahay soo gal oo ashhaado oo muslim diintayadu xaraanta ma ogala diintaydu kan ma ogala wax walba aad u sheegaysid adigi baa dhacay caruur lagu dhibay adoo gaal baa ku soo dhibay adoo muslimaana dhacay sumcadeeni Somali community duqbilow life baan ku jira saaxib gacali waa ku soo wacaya see dareemaysaa markuu gaalku ku yiraahdo war adigoo muslimaad wax dhacay oo tugnimo lagu soo eeday baxay arintani ka bilaabatay maxay ahayd lacagtani waxaan idin soo gudbinayaa
lacagta qof kasta uu qaatay weli faanoole baa leeyahay weli fari kama qodna faanoole weli fari kama qodna waxa lacagtani waxay lacag loogu talagalay after school program caruurta gaajaysan covid-19 ka mashruucani programkani ma yahay mid cusub no programkan dadba ka soo shaqeynaya 12 sano oo maantana ku jiraan ciidi juq iyo jaaq oo Soomaaliya oo aan hebel iyo heblaayo hebel u garanayo 12 sano 13 sano dad baa ku jira oo aan weli xabad qaadanin yani aan weli cid qabsan oo shaqaysanaya baabuurta wataan ay dhaxalistay saw wuxuu dhacay waxay wuxuu dhaceen ofiskan gabadhan la yiraahdo Amy ee loo bramburayo maalinta ay u bramburayaan state ayay maxkamadda aaday iyo Department of Education wadanka Mareykanka sharciga cid ka weyn ma jirto cid ka weyn ma jirto maxkamadii markii la aaday waa la arkay xoogaaba dawladda arkeen waxa la yiri winna waa loo soo daayay waa loo ogolaaday laakiin maysan ogeyn Soomaali inay bohon ku sii dhacayaan waxaan hadda rabaa inaan idiin shaaciyo magacyada soo baxay weli faan wala fari kama qodna magacyada soo baxay iyo cadadka lacagta ay cuneen okay isuga walaalaha Soomaali okay magacyada dib aan idin ka dhiganaya hadda idin sheegaya laakiin barnaamijka idin sii wadaya okay maamadan cadaanka ah ee Amy la yiraahdo iyada lafteeda waxa la siinay laaluush gifti baa la siinay waxyaalo cajiib ah cajiib shalay markii ciidamada FBI du ay galeen xarunta Karameel suuqa Soomaalida Karameel maxaa laga doonay Karameel maxaa ka jiray Karameel waxyaalaha ka jira hadaan idin sheego kulligu waa wada yaabasa dukaamada lagu iibinaayay dharka ee lagu iibinaayay calalada iyo kareemada ay walaaqaan ee kiimikada lagu iibinaayay ayaa waxay ahaayeen sayra dawladda ka qornaa in raashin lagu qaybiyo hadda raashin ma yaalo maskaxda hal shaqayso raashin ma yaalo sayrar bay ahaayeen cuntada lagu qaybiyo waxaana yaala kareemo ay soo walaaqeen iyo waxa yaala iyo calalo waxyaalaha ugu cajiibka badan waxa weeye Soomaalidu cuntadan ciyaalka ma la siin jiray war xaalad fiidiyoyo aan idin hayo يعني ما راح يدن حنوني بس ما عيال عنا انت لا عليك بس انت لا عليك ما عيال عنا cuntada qaarkeed waxa ay sameynayeen dibba looga sii gaday dukaamada Isbaanish guriga imaanayaan caruurtii magacooda ka wada qoranayaan maalinta ugu dambeeyna kuma soo noqonayaan ma ku soo noqonayaan war aniga mid xanaaqa iyo mid xanaaqda war Facebook-an ana iskale Snapchat-kan ana le afkan ana le calankaasna Maraykan baa bartaas iyaalo ii suran waa idinku qabanaya waata calankaas halkaas ii suran no bari aan u joojiyo waa ka waartan soo maaha calankaas barta ii suran okay Soomaaliya ciyaalka magacadoodii bay qoranayaan hatta fiiri markay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed baan u diray barnaamijka waxa ku jirta bulshada Soomaaliyeed baan u diray abaartii ka dhacday wadankeena iyo dadkii gaajada u dhimanayay wallahi san billahi tallahi inaysan dadkaasi wanbari ayna siin calooshooda la ciyaar faasuqiin ah oo ilaahay ka furtay oo kufriye ahaayeen maanta waxaan idin sheegayaa wax madaxu idin qarxayo dadkani jaahiliin diinta ka aradan bay ahaayeen waxay aaminsanaayeen in sixir gaalada wax laga soo qaado kulligood intay leeyihiin niman saaxiriina oo Kenya jooga niman saaxiriino Xamar jooga niman saaxiriino Allaana jooga niman saaxiriino ya kulli 10 kun la siinay qofta ugu weyn ee ugu buuran ee meeshan ku jirta storyada waxaan idin ka sheekeynayaa taariikh aad u dheer oo aad lix doontaan iyada waxa weeye programmi waaweyn ka diyaari kulligood faasiqiin bay waxay aaminsanaayeen in sixirku wuxuu qabanayo ka siitan maxaa magaalada Minneapolis ka socday maxaa gobolka Minnesota ka socday kibir iyo fasahaad war dagaalka war cayda war aflagaadada maanto kalena madaxaana furay intay isku soo raraan dahab nimanka ka sii daran nimanka waxa weeyaan dayuusiin qaleen oo reer baadiye ahaayeen
baabuur kan $130,000 $200,000 baa lagu nashnaashaya halkaasaa laga hadlaya annaga magaalada noo xiranta annaga kibir sameen yani waxyaalaha yani maskaxdiinu ka weyn tahay waxay doonayeen inay qof walba xitaa afkiisa controlaan waxyaalaha cajiibka aan idiin sheegay waxaa ka mid a yani magaaladii ayaa waxay noqotay goob faasuq war wixii cuna bal wax dhacday ummadan ammaan siiya oo edab yeesha waxaan edab yeesha oo bal naga aamusa maantoo kalena madaxaana furan maantoo kalena anagu laandheeranima iida waa jaahiliin qaarkood wallaahi oo bilaahi oo tallaahi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan been sheegin qaarkood habeenkii marka biilinka loo samaynayo ee warqadaha la buuxbuuxinayo ilaahigii nafta igashay baan ku dhaartay bacdaha qashinka lagu guro ayay ku wadaan waraaqaha markaas gudaya xagee u socota gabar ii sameynaysa biilinkii buugan waxa ii soo dhacay 2 milyan oo gabar ii sameynaysa biilinkii baan u socdaa sidii xaashiday ku wadaa sidii qashinka ayay ku wadaa xafiiska Emi musuqmaasuqa ka socday musuqmaasuqa ugu weyn ee Mareykan taariikhda ka dhaco ahaa dadkii fadhiyay qabiil bay ku shaqaysanayeen ummadii kale baabi'iyeen ummadii kale dhibeen waxaan idin wadaagayaa okay marka korsi kacdaan ayaan idin wadaagayaa hadduu ilaahay yiraahdo okay waxa weeye Soomaaliyeed dadkani markay leeyihiin yani bulshada Soomaaliyeed baan u diray abaarta wadankeeni iyadoo gaajada og tahay ay ka dhacay wadankeeni ayaa waxa la bixinaya dahab $140,000 $120,000 shakhsi la siinaya war qof Mareykan jooga qofka wax siiya wuxuu la mid yahay wari adoo biyo ku shubay qof Mareykan jooga $20 inaad siisid ma istaahilo inaad $20 siisid waxaan nan barafad baa lagu yiraahdaa waxba faa'iido ma laha lagu yiraahdaa baabuur $140,000 uga qaadanaysa see guri $2.8 million uga qaadanaysa waxyaalaha cajiibka ah ee la yaaban yahay waxa ay tahay waxaan muddaa leeyin eeganaya war maanta oo lagu jiro February maanta oo lagu jiro January bisheeda ay markii aan idin la hadlaayay oo idin soo galay oo aad kulligiin wada qayliseen maanta kulligiin ay iyo nacdal iyo waxa wadan dagaal aan leeyahay Cabdixakiin war anigu afkaan ka hadlaa community-gana waxa wanaagsan baan u soo sheegaa joojiin waxaan dhaahdo magaalada fusuqa iyo kibirka ay ku hayeen iyo fasahaadka wad yaabsa fusuqa iyo kibirka iyo fasahaadka maanta oo kalena madaxan dad baa intay gaari iska buuxiyeen bay dad business-yadiis intay tageen bay weerareen markaas wuxuu ku leeyahay laan dheerayaal baanu nahay rangers baana la yiraahdaa ilma libaxsan ka taabtaana markaas mid qaar kale jaahiliinna intay baabuur qurbada soo mara waa la kala haraaya baba madaxana furan ay maanta ka xabxaabiy waxaan idin yeedhinayaa dhamaan magacyada iyo cadadka lacagta ay qaateen عاودة waxyaalo waxaan idin yeerin doonaa aad yaabi doontaan isuga okay one of the owner Salim Said سالم سعيد waxa uu iibsaday $950,000 guri ah oo ku yaala Brumid oo waliba leh meelaha xitaa basketballka lagu ciyaaro another owner Cabdiqaadir Nuur Saalax waxa uu bixiyay oo uu dib ugu celiyay Emi $310,000
halkaasay ku qoran tahay anigu waxaan sheegaya maaha 300 waa yani wiilka la yidhaha Salim Saciid waxa uu guri ku iibsaday 950,000 oo dollar house oo Plymouth ku yaala oo waliba meel gaar ah looga sii baxayo basketballka lagu ciyaaro Cabduqaadir Nuus Saalax waxa uu dib ugu celiyay Emi 310,000 oo dollar وكاس واركان سماها اوكي احمد عمر هاشم وحو كوكوس كري غوري مليار برسكويا 2.8 مليون اوفيس بيلدينغ كو يبسد 2 مليون يا 800 او دولار كمرايكنكا و احمد عمر سعيد احمد عمر اوكي نكتب other report of the Safari Group عبد الحكيم علي احمد عبد الرحمن احمد سجل آدم حديث يوسف احمد عرتن احمد جدي عبد الناصر أبشر عن عبد القادر محمود وده هو سفاري جروب ما قاعدوا يكون علينا يا عبد الحكيم علي أحمد عبد الرحمن أحمد سجل آدم حديث يوسف أحمد عرتن أحمد جدي عبد الناصر أبشر عن عبد القادر محمود عبد الكريم عبد الله إلا أجاي وكنا هذا من كان رادنا وكنا عبد الكريم عبد الله إلا وحقوها عن حديث يوسف أحمد وحي أهايين نمكا أي فكرة عن أوتن كاري وحي أهايين نمن حفيز كتوغا خوف كستا طبعا كون أو دولار أيك قادنا ينسي كيسو دمينيين waxa kala yaab leh labadooduba maanta waa maqan yihiin master Abdikarim ile waa ninkii jacri programka oo dhan lala xiriiri jiray ku soo furaya 10 bishii la siinaya iyo xadiis ninka la yiraahdo master Abdikarim Abdullah ile isaga isli maraya Nairobi buu aaday isagoo Nairobi isli maraya ayaa dhabarka laga taabtay wiil FBI ayaa taabtay Soomaaliya waxa la yiraahdo ilama tidiyas sabiinadan qabso waa warqada marxaatiga ah أما يماد أما يانو إيمان ولا سواق بني لكن إنه مريكا يماد تبادل صبينا ده نقولها ربع بالي وإنك إلا ليلا إلا وحقو هنيك أو كونكشن يعني حري أوتان وليد تصور كذا ولا ملا سوقلين نيك حري أنا بوها قف كسر سجيو حديث وحقيقة يترون كنا $. أوكي Mahad Ibrahim كان ليرا 16 million last year after climbing okay 16 million markii damana 600 iyo 60 iyo 8 milyan 666 kun 606 wow maalintii wuxuu lahaa waa seefgareeyaa maalintii wuxuu lahaa waa seefgareeyaa 666 kidis a day maalintii intaas okay business others owners عبد الوهاب افتين محمد جامع اسماعيل عبد المجيد محمد نور and brothers عبد العزيز and سعيد فارح of بشرى اوكي مال بشرى اللي يراهدو او عدooyinka lagu iibiyo ayaa lahaayeen iyo dukaan waxay ahaayeen nimanka loo yaqaan funderka iyagu okay gabadha la yiraahdo Qamar Ahmed Hassan FBI SN5 receive 13 million point 8 million in federal bay qaadanaysa iyaduna
ay ka qaadatay 13 milyan. Okay. Mendaras Beckham Mendarasa waxay qaadatay 3.6 million last year bay qaadatay. Okay. Sarah Mohammed Noor waa waray 4.1 million. Guhad Saeed Advice Youth Guhad Saeed Central Avenue. Okay. Which got 3.2 million. And Filson Mumin Hassan Youth Higher Education. Okay. iyaduna waxay qaadatay 1.4 million. Okay. 1.4 million. ninbaa wuxuu soo qoray halkan beenaal uu soo qoray cawaan dhalay walla inaad cawaan tahay waxa halkaas ku qoran wax beena ma aha. Okay. waxyaalaha ugu cajiibka badan waxa weeye qaarkood masaajidada sadaqay siin jireen, qaarkoodna xashkay aadi jireen, waa soo xashay xaajiyaal bay ahaayeen. qaarkood xashkay aadeen waa soo xajeen oo xaajiyaal bay ahaayeen. qaarkoodna sadaqada masaajidada waa bixin jireen. waxyaalo aad iyo aad loola yaabo waxa Soomaaliyeed dadka noocaan ah lacagta intaas leeg maxay ku qabteen. qaarkood guryahooda waxa laga soo saaray $700,000 iyo milyan kaash oo qasnada ku jira. magacii ummadda Soomaaliyeed gobolka Minnesota maanta dhulku yaala. diintii islaamka sharafteediina maanta dhulka dhigtay. diinta islaamku sharaf iyo izzi ayay leedahay ma sha Allah. laakiin dadkan oo kala ayaa ku ciyaaray. waxyaalaha cajiibkan idin la wadaagay waxa kamid ah masaajid hebel baan dhisaya 100,000 baan ku daraya, masaajid hebel baan dhisaya 50,000 baan siinaya. qaarkoodna xashkayba aadeen waa soo xajeen oo xaajiyaal bay waa soo cimraysteen waa yimaadeen cimradii soo xajeen waa soo ducaysteen waa nala joogaan. waxyaalaha markaas Soomaalida yani see maanta aynu u oran karnaa qofka kristaanka uga dhaadhicin karnaa diintayadu waa diin naxariis ah soo gala because isagiyo kristaan uu lacag ku dhibay adigoo muslina ayaa dhacdo. gabadhii yarayd ee dahabka la siinayay ee meesha joogtay ninka iilla la yiraahdo iyo iyadu dadka waxay ahaayeen yani xira laymanka min $10,000 oo kaash ayay every person ay lay u soo xidhaan ay ka qaadanayeen. waa ta iilla loo diray sabiinada. waxaan ay sameynayeen yani damage sumcadeed oo community ayay geysanaysaa. war ilaahay baan idinku dhaarsheeyay meel lagu yiri nan barafad kama faa'iidi kartid see gaari $130,000 uga kaxaysanaysaa see guri $2.8 million u gadan kartaa sidee yani dahab $500,000 korkaaga u saari kartaa. war ma waxay damiirkeenu miyaanay noole islaantaan Emil la yiraahdo maanta waxa dhiiqada geliyay oo dawladda la shaqeynaya oo damage geey waa tii office-ka fadhiday magaceeda oo kooban bartaana idin soo dhigaya sawirkeeda oo kooban bartaana idin soo dhigaya. lacagta ugu badan ugu sayrka badan waa gabadha samaysay. qof kasta oo sayr siiso waxay ka qaadasay $10,000 $20,000 50% qaarkood bay lahayd. magaceeduna meel kuma qornay. ajeeb waxa la use gareeyay ee la baabiyay waa magacaagi. waxa jirta mid kale oo idin la wadaagi doono oo gabadh inda deeq la yiraahdo oo Soomaaliyeed oo meeshan community ku lahay oo medical xitaa lahay 10 sano jeel ay soo leedahay tii in adeerteed ahayd oo office-ka ka shaqeynayay ayaa jaajustay tiiba maanta programyada ku jirtay oo meel walba information-ka la ii soo diraan hayo madaxayda xanuunay meel walba gacantay kula jirtay sayrabay bixinaysa. dadka magacooda ayayna isticmaalaysa.
Soomaaliya aqligan inuu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. Soomaalida maxaa Nigerian ba magaalada jooga, inta yar baa joogta, Chinese waxa jooga, inta yar baa joogta, Mexican baa jooga, cid kasta joogta. bal waxaad ii sheegtaan qof Oromaa joogto inaga badane oo joogtay qof Oromaa oo la haysto ii sheega. qof Oromaa oo la haysto ii sheega. Firdawso Shariife inaade ma dhowr sayid baad lahayd mise emiyay baad lahayd, qoladii emiyay waxba ka soo gaari jirtay. qof Oromaa oo maanta la haysto ii sheega. qof Mexican oo maanta la haysto ii sheega. ma jirto. qof indhayar oo la haysto ii sheega. qof Arab oo la haysto ii sheega. ma jirto. war maxaa inaga inagu dhajiye haddaynu Soomaali nahay hoondhiilarka? maxaa hoonka inagu dhajiye? maxaa inaga ina saaray diiradda? soo ma aha waxa ina saaray wax inagu aynu isku keenay, soo ma aha. war waxaad ii sheegtaan ilaahay baa idinku dhaarsheeyey, Soomaaligu markuu 100,000 jeebkiisa galo muxuu la waashaa? muxuu la waashaa markuu 100,000 jeebkiisa galaan? muxuu la waashaa? wax aad iyo aad loola yaabo, wax aad iyo aad loola yaabo waxa cuntadan ciyaalkan ma la gaarsiin jiray? may ma laba gaarsiin jiray. qaarkood intay soo qaataan ayay tuuri jireen. isaga cuntada ciyaalka ma la gaarsiin jiray? no ma la gaarsiin jirin, ma la gaarsiin jirin, mana la samayn jirin. qofka maanta shalay way khudbaysay, xafiiskeedii bay shalay ka khudbaysay. waxay tiri Ikraam ayaa igelisay baxarkan, laakiin mid kumaydaan xisaabtamin Soomaaliya. waa gabar cadaana, waa gabar cadaana, dhiil bay qaadanaysaa, kulligiina way idin wada sheegaysaa. Ikraam waxay ahayd qofka ummadda Soomaaliyeed meeshaas ku kala dilay ee qabiilka ku fadhiyay ee ummadda baabiyey. war qof shaqaystay ayay xaqiisii ka hor istaagaysaa, iyada oo u isticmaalaysay baawarkii xafiiska ku haysatay inay ummadda kale ku naasnuujiso. bartaanaan keenaya, sawiradeedan keenaya, iyada dhiil ha qaadato, laakiin wadadan way ku soo dhacaysaa, wadadan way imaanaysaa. waxaad arkaysaa waxyaalaha cajiibka ugu yaabka badan wuxuu yahay, mid baa waxay wadataa caruuro dhan magacyadood, markaasay dhahaysa anaa biilgaraysa, abaayoy anigana kaale carruurtii kale magacoodaysi. war saydharkooda yacni 20 qof cunto kama qaadanaynin. war ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya, ilaahay baan idinku dhaarshay maanta maxaynu oran karnaa dad islaam oo xaaraanta nacab ayaynu nahay? innagii baa cunan. war lacagtii mar alla markay lacagtii heleen magaaladii baa laga fidhin waayay. war kibri aad laandheeranima ida madaxaana furan maanta ay hob bay tagayaan, ay hob kiibay galayaan. waxay dha maanta kalena madaxaana laandheeranima ida. dad baa businessyadiisii la weeraraya oo lahaa anoo reer hebel ayaan kaa samaynaya laandheeranima ida. meeshaan waa lagu soo wada dhacay, waana lagu wada jiraa, hana laga xabxaabiyo. ilaahay baan idinku dhaarsheeyey, dad baan waxaan idiin shidayaa ood yaabi doontaan waxyaalaha qaarkood. isuga waxaasoo dhan Isbaanishka dib looga iibinayo. yaa garanaya qofkii wholesalerkaas meeshaas qofkii lahaayow waad garanaysaa soo maaha? si fiican baa u garanaysaa. iskaro
اوكي بس كاس انت على عروض معون جري من لسين جري مايا waxaana inay soo socdaan bishan January bisheedii last year ayaan bartaan la soo gala oon uga digay waxaan ka hadlay habeen Ramadaan ah yaan ka hadlay oon ku yiri war Soomaaliya meeshaan dhibaata ka soo socotay maasiir u socotaa maanta halkaas ay maraysaa wali fari kama qodna maalinta talaadada ama arbacada dab baa la iska kicinayaa dab qoftaan idin leeyahay waxay jaajuustay in dadeen oo 10 sano xabsi soo qaatay ofiskeeda joogtay arooskeeda markay dhiganaysa iyada lacagta siisay guriga ay ku jirtay iyada u gaday way caawisay markii dambana iyada dhulka la goysay meeshaan waa lagu kala baxayaa in yar oo nadiifana soo haraysa in yar oo nadiifa oo sharciga raacda ayaa soo haraysa waa lagu kala baxayaa magaca Soomaaliyeed mid dilmaya ama mid dhimanaya ma diinta islaamkana waa ceebayseen oo wallaahi oo billaahi wa tallaahi mid kalena waa idin sheegay intii halka ku jiro qof intuu isoo waco oran kara waxaan ka hadlay George Facebook ka saar ma jirto qofkii isoo waca waxa weeyaan isaga ka shalaayay qof Facebook ana iskale Snapkeygana ana le waxaan doonana ana sheegay cid aan ka baqaay ee cid aan u joojinaa mid heer waxay gaareen ay yiraahdaan lama hadli karo وسوقينا لقى في النواي وروقوا الإسلاميين هذا القرآن بيكسروا الجرويا حاول شلا يدنا تلفوني وكود عرّن وصاب يسكوا على الجاهلين وصاب كلفت سوى لا نحتاجيه لا نهر هو نحتاجيه وطن كان وإنه سودا ويجي شرعي بين نيرسي يجوا قالوا كريستيان يكو آمنين لعك لا يكو يعني عروت هذه هي عروتي كراسي سيادة مسلوق دعسة سيادة مسلمة أدو دعسة Soomaaliya magaceeni maanta dhulku yaala runta dad badan baa igu nacab runta yaani dad badan baa aad ii nacab oo waxay dhibsadaan runtayda aad bay u dhibsadaan way taas u garaacdaa laakiin inuu joojiye ma ii cid aan ka baqaayo war anigu laba waxbaan ka baqaa mid waa Allah khalqay subhanahu wa ta'ala aadamki qafuurka abaan ka baqaa midna waxaan ixtiraamaa oo dhowra sharciga wadanka isiye baasaboorka indagana qof kale u joojiye ma jirto qof Soomaaliya waji kale yahan jirin qof Soomaaliya hadalkiisa rabin baa jirin halkaan runta ka sheegaya haday ku dhibeyso ya waxyaalihi magaalada ka dhacay isnaabkii aawe isnaabyadii isnaabjaadyadii lagu jiray aawe la dheeranimadii aawe madaxa ifirmada aawe mar haddaad adduunyada hesho darajo iyo magac ogow halista cadowgii aawe weer maxaa loo soo geli waayay isnaabyadii la dheerinimo iidaa maxaa loo imaan waayay weer bishaan bisheedii qoraaladii aan qoray caawaan idiin soo dhigi doonaa dib baan ugu noqon doonaa Facebookay aaway maanta isnaabkii aaway maxaa uga cararteen la dheeranimadii aaway Kenya wiilka la yiraahdo Ile ee xafiiska eemi ka shaqeynaya sabiinadii waxa loogu dhex dhiibay islii dhexdeeda tabarka laga dirbaxay iida samadiyaas qabso fiidoogiisa la lootaa wixii soo dhan baa lootaa sabiinada qabso hadduu imaan waayo gaalada inda deeq odageeda gabadhan inda deeq aan leeyahay ee warsan gali odageeda xagee laga soo qabtay ee gabadha maanta adduunkan qastay waa ku xigtaashiis nagasti xagee laga soo qabtay South Africa laga soo qabtay guriyaha Kenya iyo guriyaha Muqdisho waa la wada keenayaa waxyaalaha aqligu inuu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay eemi waxay tiri isnaba oo aamus iyadii ay sheegaysay waxay tiri isnaba oo aamusa shalay ayaan deganay ayaa shaqsiye deganaydeen maantana 2 milyan baad haysataan aqliga ma gasho war qofkii ninkii PhD dhakhtarkii Mareykanka ahaa iyo PhD dhakhtarada uu baa maanta bishaara fiican wadankan qaata dadkii businessada injineerada waxa soo dhulkay wada galay bacday ku wada waraaqii waa gudasa gaari waxa wada Highlander gaari waxa wada Range Rover gaari waxa wada Tesla waraaqii bacji ma qashin baad wada maya waxa wada biilinkii baa la sameeyaa bishana waxa ii soo dhacay wiigana 2 milyan soo ka dambe ayaa 3 milyan soo dhacsan
dahabka waxay ka dhigteen cabaayado nimanka baabuurta waxay ka dhigteen yani waxyaalaha wiilasha Soomaaliyeed sameynayeen kaba maaragtay $3,000 kaba $3,000 ma aragteen ma maqasheen midna ma saarteen ii sheega xataa kaba yowg wala urursan ilaahay nafta igashay baan ku dhaartay hal been haddaan idin sheego Soomaaliya ilaahay cadadiisu hay u dhacdo حتى كذي والله قلت قوليه لقرأ كتيرها والقصة قوي ضدك مرجع لك فراي أكون هذه ما تبغى فرز ولا الدنيا شيل لك ما بحكرة قال كم إذا مركي الله قرأ كتيرة تحداير وين كفى لسي أمريكا أسكال بعمر له ساعديه كنجي وحي بلايا دي كبيوي جاكدي كندي ينقصي وحي الله لك عر وبرع علي إلهي النفط يقشي بان قدرتي 3000 شوس الله خلقان قدرتي واجرا صومالي بان خني صومالي بان خني كشكه marka wax weeyaan Soomaaliyeed ceebteeni maanta dhulkay taala program xirmaaya maya no America sharcigeedu u shaqeeya barta beenta la faafinayna qaarkiin joojiya xalay waxaan arkay gabadha la yiraahdo Kero ee meesha iyadu lahayd lagama xidhin laakiin waa la joojiyay hadda ka hor baa la joojiyay waa loo soo daayay programkiiba lacagta baa laga joojiyay biilinkii laakiin lama oranin waa laga kansalay laysankii eemi way qofka laysanka laga kansalay iyadana gabadhaana hadii lagu helo sharci daro dacwadi kama hor istaagto waa laga kansalaya hadii aan lagu helina tan way shaqaysanaysaa dadkii shaqaysanayay sidoodiiba u shaqaysanaya sidoo uu shaqaysanaya baabuurta dadka qaarkood ay gateen xabadu ma kareynin xaguu joogaa waxaan joognaa Muqdisho waxaan joognaa South Africa xabadu ma kareen bullet proof bay baabuurta qaarkood ahaayeen